وحالا يا بينو مارتي قولوا تسعة كبرت ممكن لها مارتي أنا رأيي محافلة بيكام أو كله نتيجة أنت لا يقولوا كين كراس سدوا عيار كراس لازم هدي أو قرنا عيارتي أو كحلي سهر أو كله والله بيكام جو أد الوكلا رسي من أد وهم ويستلت كذا لكن بيكام كل اسمه لاعبين كانوا برضه جرين بيشا أو خطر أي حالنا رونالدينيو جوجي مارتي مرة حاجة الموسم يقول معان ورونالدينيو ومارتي وسمعان وكعيدا ولوجيت ورونالدينيو كلهم يقول كبار وكذا ريال مان يونايتد وإنه وصل تجري وين حتى برضه عمره تام رونالدينيو إنه كحناتي إنه أرد أسوأ غلط مارتي ليست ولا حاجة أو مارتي لكن محلنا نتذكره إنه محلنا وأقول عليه ميلان مارتي تي وحنقول لك مارتي عيال ولا تبغى نقول لك صدق كيلا لا نقول بدي مارتي إبراهيم سؤال عن كويديو أدو عيارها يوروب ياز دي بسوطة يا سبوت كريسا عيارها يوروب رودي حتى وحقات مارتي أقول حتى هاي برشلونة أيام حتلاقي هاي مارتي كي تبع وين بكتاون دوتا يلا ندير غير أجرا فاليو وهسوغينا marka wixii ku guuleysan doona waa maasan tahay waryaheena magaalada Leicester noo jooga Ibrahim Fande sidoo kale haddii su'aal kaa weydiiyo maali ciyaartii Arsenal iyo FC Porto kale Arsenal away oo waxay ku ciyaartay Portugal natiijo ka waran ciyaartaas oo Cabdirashiid ciyaartaas horta ciyaar fiican bay helay Arsenal markasta sida lala socdo waa iska ciyaar fiican tahay oo iyadu markasta ciyaarteedu daduna aad bay u xiiseeyaan laakiin xal waxaad moodaa in maaragtay difaaca ka liitay sida uu soo safay saw Campbell uu soo safay oo 3 sano 4 sano ka hor aan Champions League ciyaarin qaladka goolka looga dhaliyay isaga uu lahaa goolhayaha uu kubadda lugta ugu dhiibay isagoo intaas soo ciyaariyay waxa kaloo moodaa in ciyaartii Galas uu ka fadhiyay ciyaartoy far badan ay ka fadhiyeen laakiin markii la isku soo noqdo hadii Ash Fan baa fadhiyay hadii isku soo noqdaan ciyaarta qaybta dambe waxa laga yaabaa in hadda ka horba sanadkii hore aad xusuusato sidan oo kale u dhacday waa sax laakiin hadii la fiiriyo Southampton oo kale gool uu dhaliyay oo wuxuu siiyay gool oo sax oo gool aad u fiican gool aad u fiican buu dhaliyay runta laakiin day qaladku sameeyay baa goolkii qariyay goolka dhibaatada gool dhaliso qalad gool lagaaga badiyo aan dhaliso goolkaaga xoogaa wuxuu noqonayaa waxaan waxba goolkii wax dadku waxay xusuusanayaan qaladkii dhacay ma marba xusuusanayaan walow hadda tababaraha uu aad ugu dhagan yahay kasooraha uu leeyahay bas ma oran karaa haddii sidoo kale Ashafin ama Galas fadhiyo kale sida ognahay Arsenal isbuucyada la soo dhaafay horyaalka Ingiriiska guul darro badan ay kala kulantay sida kooxaha waaweynka oo top 4 Chelsea Aston Villa oo break price marka iyadoo taas haasato oo wili guul darrada ka soo kabanay ayaa FC Porto ay la kulantay mararka qaar waa la oran karaa sanadkii hore Champions League hadda xusuusto FC Porto haddana isku beegnaayeen saacadan oo kaleeto quarter finaalihii hal bay FC Porto ku soo dhamaatay markii yimaadaan Imaraadna 3-0 baa looga badiyay marka waxa laga yaabaa markii halkii yimaadaan inay maaragtay sidoodii oo kaleeto ay guul rajiyaan laga yaabaa daawadayaal haddana bal ciyaartii nala fiirsada Arsenal iyo FC Porto taasi waxay ciyaartii FC Porto iyo Arsenal dadweynaha waxaan rabnaa inaan u sheegno in wiiga dambena ay ciyaari doonaan wiigan waxa ciyaaray 8 kooxood oo hadda sidaan ku falanqeynay 8daas ayaa ciyaartay wiiga dambena waxa ciyaari doona 8 kooxood oo Cabdirashiid yaa ka mid 8daas yaas ugu kulul ciyaarahaas 8daas kooxood oo ashagtay waa sax oo isbuuc soo ciyaar doonaan 8daas kooxood waxa kamid ah Barcelona, Stuttgart, Olympiacos, Bordeaux oo Francis ah iyo ciyaarta ugu kulul oo labada sugayo oo sida Manchester iyo Milan oo kala ahayd waa Chelsea iyo Inter Milan maxay ciyaartaas kaga duwan tahay ciyaaraha oo dadku u xiiseynayaan ilaa hadda loo sii hadlayo waxay kaga duwan tahay ciyaartaas waa ciyaar aad iyo aad u wanaagsan hadii la fiiriyo maxaa yeelay marka hore Inter waa ognahay waa team aad weyn oo Italian Chelsea waa Premier League hogaamiya waa Chelsea top team markii xigtana dhinac laga fiiriyo Mourinho
Jose Mourinho oo taariikhda Chelsea marka hore ninka soo saaray 2004 oo taariikh weyn ka galay oo haddana kamid ah tababarayaasha caalamka ugu fiican oo kamid ah ayaa xifaaltan wuxuu kaga dhaxeeya Chelsea marka natiijada ma ogaan karno wax ka dhaxayso laakiin anaga waa ka warsugeynaa waxa dhacay doona daawadayaal waxaan idin sheegaynaa in barnaamijkeena European-ka hadda aan bilownay oo Champions League iyo European-ka aynu idin soo gudbin doono maalin kasta oo khamiis ah iyo maalin kasta oo isniin ah waad kala socon doontaan TV-ga caalamiga ETN ee idinkaga soo baxa magaalada Birmingham ee waddanka UK waxaa kaloo idin sheegaynaa in ciyaartan Chelsea iyo Inter Milan ay dadku aad u xiiseynayaan Jose Mourinho oo maaragtay markuu halkan joogay isku sheegi jiray maaragtay I am the best man who lives in maaragtay waxaan ahaan jiray ninka ugu fiican maaragtay aan ahaa daawadayaal intaa waxay nooga ag barnaamijkeenii Champions League aan ugu talagalnay in aan ku soo gabagabayno inaan mar walba idinkaga soo gudbino studio-heenan inta uu ka dhamaanayo waxaan idin weydiin doonaa barnaamijyadeena soo socda su'aalo ku saabsan cidda qaadi doonta cidda gool dhaliska qaadi doonta su'aalooyin fara badan oo kala duwan balse ay barnaamijyadeena kale aan idinkugu soo gudbin doonaa waa anigoo Mahdi Cabdi Sugule Cabdirashiid Maxamed Rashka bile oo igala qayb Maxamed Cali oo igala qayb qaadanayay Ibrahim Fande oo igala qayb qaadanayay cameraman Cabdi Fataax Cabdi Naasir Xarago iyo bahda ETN dhamaanteen waxaan idin leenahay sida iyo nabad geliyo